halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay siyaasadda ee Soomaalida qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah ciidamadii ugu badnaa abid oo qorsheynaya inay ka soo horjeestaan dawladda hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku aruursanaya waqooyiga magaalada Muqdisho iyo xogo laga helayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ciidamadaasi abaabulaya iyo xogii ugu dambeeyay ayaa saaxiibayaal soo gudbin doona qodobada kalena waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo dib u bilowday shirarkii ay ku qaban jirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xilli 5 sano ka hor dawladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay joojisay qodobadaasi sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa sirta ka dambeysay iyo wasiirada shirarka uga soconaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya qodobada kalena waxa ka mid ah xisbiyada mucaaradka Somaliland ucid iyo sidoo kale wadani waxay maanta go'aan ka soo saareen muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyagoo qodobo dhowr ah sheegay sidoo kalena qorsheynaya in ay sameeyaan afgambi iyo sidoo kale mudaaharadyo waaweyn ay ka sameeyaan deegaanada ama magaalooyinka ugu waaweyn ee Somaliland qodobadaasi kuwa kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona saaxiibayaal balse aynu ku bilaabno ciidamadii ugu badnaa abid ayaa qorsheynaya in ay ka soo horjeestaan dawladda hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogo laga helayo ciidamadaasi oo ay horkacayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo qorsheynaya in ay ka soo horjeestaan madaxweynaha Soomaaliya oo la sheegay in dawladdiisu ay hub ku daabushay gobolka Hiiraan ciidamadani oo qaab qabiil u dhisan ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda hogaaminayo Wasaare Xamse Cabdi Barre ay ka diiday inay hubayso ciidamadani si ay ula dagaalamaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ay u xoreeyaan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe oo xilligan dabcan abaabulaya inay iska xoreeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab xilli duleedka magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka soconayaan howlgalo ka dhana Al-Shabaab oo ay iska kaashanayaan ciidamada sida gaarka u tababaranaya Haramcad iyo sidoo kale kuwa Danab magaalada Balcadna waxaa ku sugan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawi Xuseen iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad-sugidda sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad xilli maalintii Jimcaha howlgal ka dhacay duleedka magaalada Balcad uu ku geeriyooday taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole warar kale waxay tibaaxayaan in xildhibaano ka soo jeeda beesha Abgaal iyagu qorsheynayaan abaabulayaan ciidamadan sidoo kale iyagoo doonaya in deegaanada ay shabaab ka haystaan ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku xoreeyaan xilli ay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xukuumadda uu hogaaminayo Wasaare Xamse Cabdi Barre iyagoo ugu dambeyn ku adkeeyay carabka in haddii xukuumadii sidoo kale dawladdu ay ka hadli weydo gadoodka ciidamadan iyo sidoo kale waxyaabo ay doonayaan in laga qanci waayo in ay magaalada Muqdisho rabshado iyo sidoo kale ay goosan doonaan degmooyinka Kaaraan iyo sidoo kale Shibis iyo degmooyinka kale ee waqooyiga magaalada Muqdisho markana haddii aynu eegno dawladda Soomaaliya ee dib u soo celisay shirarkii ay ku qaban jirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xilli dawladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay joojisay shirarka lagu qabanayo dawladaha dariska la Soomaaliya magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa waxaa shir uga furmay madax ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga ee Soomaaliya Beena iyo sidoo kale Dr. Cilmi ayaa halkaasi waxay shir kula qaadanayaan hay'adda lacagta adduunka ee loo yaqaan IMF xilli dawladdan ay dib u bilaabayso shirarka lagu qabanayo dawladaha dariska sida Ethiopia iyo Kenya oo Kenya muddooyinkii u dambeeyaba xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeyay aad u xumaa xilli madaxweynayaasha cusub ee loo kala doortay Soomaaliya iyo Kenya waa Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha cusub ee dalka Kenya dabcan iyagu qorsheynaya inay xoojiyaan xiriirka soo jireenka ay ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Kenya wararka qaar waxay tibaaxayaan in wasiiradani sidoo kale ay qorsheynayaan in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan wasaaradaha dawladda Kenya sidoo kalena ay halkaasi kulamo kala duwan ku soo qaataan hay'adaha kala duwan ee dawladaha Soomaaliya iyo Kenya si ay uga xaajoodaan xiriirada ka dhaxeeya haddii ay dhaqaalaha amniga iyo sidoo kale waxyaabaha sohdi wadaaga shirkan uga socda magaalada Nairobi wasiirada kala wasaaradaha qorsheynta iyo sidoo kale maaliyadda iyo hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa waxa diiradda lagu saaray hanaanka dib u eegista iyo horumarinta maaliyadda dalka xilli magaalada Nairobina ay ka soconayaan ama kulamo ay ku yeelanayaan xubno ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland oo qorsheynaya ama sidoo kale halkaasina abaabul ka wada sidii xilka looga tuuri lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo la filayo inuu dhawaan muddo kordhin sameeyo
waa madaxweynaha kaliya ee weli aan muddada xilhayntiisu kordhisanin iyadoo madaxweynayaashii kale ee maamul goboleedyada sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug ay min hal sano ku darsadeen maalnimadii shalayna 2 sano lagu daray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu dambeyntiina haddii aynu ku soo gabagabayno magaalada Hargeysa ee Somaliland waxaa maanta kulan ku yeeshay xisbiyada mucaaradka wadani iyo cid iyagoo kulankaasi ka soo saaray qodobo muhiim ah oo ay sheegeen in ay uga soo horjeedaan muddadii 2 sanadood ee loogu daray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. mas-uuliyiinta labada xisbi mucaarad wadani iyo cid ayaa sheegay in go'aamada qaar la sii og yahay sida in ay ku dhawaaqayeen maamul kumeer gaar ah oo Somaliland u suurageliya doorasho dhacda 13 November ee sanadkani. waxay carabka ku adkeeyeen mas-uuliyiintani ay sheegeen in xilka madaxweynaha wixii 13 November ee sanadkani ka dambeeya ay u siman yihiin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyagu sidoo kalena ay sheegeen in ay qorsheynayaan in ay sameeyaan maamul ka madax banaan maamulka Somaliland. wararka kale Soomaaliya laga helayna waxaa ka mid ah in magaalooyinka waaweyn sida magaalooyinka Burca iyo sidoo kale Boorama iyo magaalada Hargeysa la qorsheynayo in dhawaan laga sameeyo mudaharaadyo waaweyn oo laga soo horjeedo muddo kordhinta ay golaha guurtida u sameeyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi maalinimadii shalay. iyaguna sidoo kale muddo kordhin ay sameysteen siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland waliba kuwii jabhadii ka mid ahaa ayaa qorsheynaya in ay hogaamiyaan howlgallada looga soo horjeedo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi muddo kordhinta uu sameystay. siyaasiyiinta ku xil dheer arrimaha Somaliland waxay sheegayaan in madaxweynayaashii ka horeeyay Muuse Biixi Cabdi intoodu ay muddo kordhin sameysteen balse ay ka duwan tahay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi haatan loo baahan yahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto 13 November ee sanadkani. sidoo kalena warar qaarna waxay isbaaxayaan in magaalooyin ka baxsan Somaliland laga abaabulayo jabhado dib uga curta Somaliland sidoo kalena lagu carqaladeynayo nidaamka Muuse Biixi Cabdi oo la sheegay in lagu cadaadinayo in uu ka laabto muddo kordhintii ay u sameeyeen golaha guurtida Somaliland. sidoo kalena xisbiyada mucaaradka wadani iyo cid oo ay kala hogaaminayaan Faysal Cali Waraabi sidoo kale Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa ay ku hanjabeen in maalmaha soo socdo ay ku dhawaaqi doonaan xukuumad ka madax banaan xukuumadda Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen in ay 13 November ee sanadkani wixii ka dambeeya aysan ku joogin nidaam rasmi ah. waxay sidoo kale sheegeen in magaalada Burco oo markii horeba looga dhawaaqay systemka Somaliland ay tagi doonaan sidoo kalena ay ugu dhawaaqi doonaan maamul ka madax banaan maamulka Muuse Biixi Cabdi oo ay sheegeen in uu talada doonayo inuu xoog ku sii joogo iyo sidoo kale in uu doonayo in Somaliland ay ku daadato dhiig iyagoo sidoo kalena jaaifo weyn ugu geystay sheegayna inuu yahay nin jabhada sidoo kalena dalka uu doonayo ilaa uu ka geeriyoonayo in uu iska sii maamulo. sidoo kale labadani xisbi mucaarad ayaa sidoo kale waxay qorsheynayaan in ay ciidamo badan oo dhalinyarada Somaliland kamid ah ay qortaan si ay isaga difaacaan waxyaabaha ugu imaanayo xukuumadda Somaliland ee hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi. wararkii ugu dambeeyay wanaginta nabadii